حديث كان أفر لباطنات عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك صلى الله عليه وسلم وحورهاي لا يقص مقصوده على الناس دتك الدشوده إلا أمير قف أميره مويه أو مأمور أما قفل أمري أو أميركو أمري أو مراء أما مد دتك استستصاي مويه marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidkan wuxuu leeyahay dadka uma qisoodo uma sheekeeyo ilaa qof amiir ah mooye ama qof amiirka soo amray oo ma'muur ah. qofka amiirka waa la ogol yahay inuu racyadiisa iyo shacabkiisa uu la sheekaysto uu la waramo, ama haddii kale inuu qof usoo dirsado qof uu soo amray inuu dadka u sheekeeyo oo xaaladood uu ka wareysto uu u sheekeeyo wey. wixii intaas ka soo haray wuxuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii intaas ka soo haray waa qof istustus ah. yacni waxaa loola jeedaa sheekada ama qisadan waxay tahay qofka intuu dadka uu soo kulmiyo maantana uu u sheekeynayo. markuu u sheekeynayana Allah subxaanahu wa tacaala uguma sheekeeyo walaa rasuulkiisana uguma sheekeeyo, waa sheeko caadi ah dadka uu ka qoslinaya u sheekeeya waqti uu ka lumiya. qofkaas oo kale waxaa u dhowba dadka inuu lumiyo ama waxyaalo kale ugu sheekeeyo oo been ah. maanta dha wuxuu ka sheekeynayo ilaahay rasuulkiis kama sheekeeyo ama rasuulkaasaan yidhi ma dhaho, waa sheeko caadi ah, waa qisooyin dadku ugu sheekeynayo oo u qisoonayo. marka waxaa laga yaabaa dadku inuu ku lumiyo. marka kaas oo kale ayuu ka hadlaya xadiidka. qofka amiirka ah dadkiis wuu u sheekeyn karaa, wuu u qisoon karaa, xaaladooda ayuu ka warqabaya, ama qof ayuu soo dirsanaya. wixii intaas ka baxsan qof intuu dadka soo aruuriyo waa idin sheekeynaya kaaliya oo waqti uu ku lumiyo, taas lama ogolo. waxaa laga yaabaa ummadum inuu baadi ku rido oo bilaayo been uu u sheego oo waqtiga uu ku luminayo, ama waxyaalo kale ay ka dhashtaan. qofka hadduusan dadka u sheegaynin Allah subxaanahu wa tacaala hadalkiisa iyo rasuulka hadalkiisa, ama dadka uusan diinta ku dhiirigelinaynin, qofka waxaa la doonayaa hadduu dadka uu kulminayo u sheekeynayo rabbigii subxaanahu wa tacaala inuu ugu sheekeeyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam, inuu u sheego dadka rabbigooda uu xasuusiyo, aakhir uu xasuusiyo, cibaadada uu xasuusiya la doonaya. yacni inay manaafacaad iyo faa'iida ay ka helaan fidhigiisi iyo sheekadiisi wey. laakiin inaa maanta dhan dadka u sheekayso saana la yidhi saana u sheekayso, markay meesha ka kacaana waxba faa'iide gacanta kuma hayaan. haddii la yidhahdo maxaad ka faa'iideen waxba kuma hayaan. kaas oo kale lama ogolo, dadka inuu kulmiyo u sheekeeyo lama ogolo. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay dadka uma sheekeeyo ilaa qof amiira mooye. qofka amiirka markuu u sheekeynayo faa'iidaa ku jirto, dadka xaaladooda ayuu la soconaya, wax badan buu qiimeynaya. ama qof markuu soo dirsadana dadka xaaladooda ayuu qiimeynaya, wax badan ayuu la soconaya. adiga dadka xaaladooda ma qiimeynays, amiirna uma tihid, waxaad ugu sheekayso waqti lumis wey.